السلام عليكم وحدوني إنه كقيب قاتل دجالك العراق وحون أودين وكشفوا هي أذها أمنية مريكانكا يولي ببرنامج كبصاص لماذا حتى بواكما إدوارد سناو wuxuu jiray 19 jir markii uu mareykanka galayay dhibaato taasi oo xulafadiisii iyo cadowgiisii ahayd wuxuuna ruxay muuqaalkii madaxweynihii hore ee mareykanka Barack Obama indhaha mareykanka wuxuuna ka tagay gurigiisii qaaliga ahaa iyo jasiiradii oo deganaa mushaar aad u badan isagoona la shaqeeyay hay'adaha amniga mareykanka qofkaasina waa Edward Snowden. Edward wuxuu bartay warfaafinta iyo macluumaadkeeda wuxuuna ku bartay xarun ku taal gobolka Maryland balse waxbarashadiisii ma uusan dhameystirin wuxuuna ku biiray ciidamada mareykanka wuxuuna bilaabay tababar military ee ciidamada gaarka ah ee ka dagaalamaya dalka Ciraaq maadaama Edward uu xiligaas xamaasad lahaa maxaa yeelay isagu wuxuu rumaysnaa in uu yahay shakhsi u taagan in uu caawiyo isla markaana xurayo dadka silicsan marka laga reebo wuxuu cadeeyay in inta badan saxaabtiisa tababarayaasha ay aad u faraxsanaayeen isla markaana jeclaayeen dilista dadka Carbeed iyada oo aan la xureynin si kastaba Edward dagaal ma uusan u aadin Ciraaq maxaa yeelay lugta oo ka jabta awgeed ayuu wuxuu ka haray ciidamadii loo kaxeynayay dalka Ciraaq. Edward wuxuu ka shaqayn jiray dhaawac soo gaaray darteed ilaalinta ama waardiye xarunta wakaaladda amniga ee jaamacadda Maryland 2005 ayuu ku biiray hay'adda sirdoonka mareykanka ee CIA-da inkastoo uu shaqeynayay CIA-da isagoo ahaa qabiir dhanka amniga ah wuxuu shaqadiisii ka kororsaday aqoon iyo khibrado ballaaran oo u lahaa warfaafinta iyo internetka. sanadkii 2007 wakaaladda waxay u dirtay ergeyga diblomaasiyadeed ee mareykanka ee ku yaal magaalada Geneva ee dalka Switzerland halkaas oo ku soo qaatay isla markaana ku soo bartay Geneva cabirida shaqada hay'adda sirdoonka ama barnaamijyada loo yaqaan basaasnimada waana markii ugu horeysay ay helaan tiro badan oo dokumentiyo ah oo aad u sareeya. sanadkii 2009 wuxuu ka tagay CIA-da si uu uga shaqeeyo farsamada yaqaan cilmiga macluumaadka iyo waliba wakaaladaha isagoo shaqo ka bilaabay xarunta amniga mareykanka ee basaasnimada taasoo xarun military ku lahayd dalka Japan. sanadkii 2010 ayuu waxa loo bedelay sargaal ka tirsan barnaamijka xafiiska ku yaal jasiiradda Hawaii ee mareykanka intii uu la shaqeynayay hay'adda amniga mareykanka. Edward wuxuu awooday in uu helo dokumentiyo aad u badan heerkooduna sareeya gaar ahaan barnaamijka basaasnimada ee Prism waana barnaamij awood ku siinaya in si qoto dheer loola socoto isgaarsiinta iyo macluumaadka oo ay ku jiraan emailada fiidiyowyada iyo waliba wada sheekaysiga codadka muuqaalada sawirada iyo waliba feelalka adigoo u maraya faafinta shabakadaha bulshada isticmaasho. barnaamijku wuxuu awood ku siinayaa beegsiga muwaadiniinta iyo waliba adeegsiga internetka ee ka baxsan gobolada halka iyagoo la adeegsanayo barnaamijyada hay'adaha amniga ay awoodayaan in si toos ah u galaan adeegyada gaarka loo leeyahay ee bixiyaan shirkadaha ku yaal Mareykanka sida Microsoft, Yahoo, Google, Apple, Facebook, YouTube, Skype iyo kuwa kale. Edward wuxuu bilaabay fikir 3 sano ah kadib markii uu la shaqeynayay hay'adda taasi oo uu ku saabsanaa sax ahaanshaha waxa uu sameeyay iyo waxa uu arkay wuxuuna tixgeliyay in uu soo bandhigo siraha dawladda isla markaana u soo bandhigo bulshada. ninkaana waa Edward wuxuuna ku shaqeynayay mushaar aad u heer sareeya taasoo ku dhawaad gaaraysa 200,000 isagoona haystay guri aad u qurux badan isla markaana deganaa jasiirad ku taal Mareykanka ee la yiraahdo Hawaii wuxuuna haystay nolol qurux badan iyo waliba xasilooni sida laga soo xigtay isaga wuxuuna helay in barnaamijka basaasnimada khatar dhab ku tahay dimuqraadiyadda. Edward wuxuu diyaar u ahaa in wax walba bixiyo balse guushii Obama ee madaxtinimada Mareykanka ee 2008 wixii siisay rajo ah in dib u habaynayo mustaqbalka taasoo ka dhigtay in uu dib u dhigo qorshihiisii ahaa in uu soo bandhigo barnaamijkii basaasnimada ee dawladda Mareykanka balse wuxuu arkay in markii dambe ay ahayd wax aysan isbedelin oo aan waxba laga faa'iideen isla markaana aysan faa'iido lahayn haddii uu soo bandhigo xitaa macluumaadka uu hayo.